gudida ka hortaga aafada tahriibka iyo shaqo abuurka dhalinyarta Soomaaliland ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay kulan ballaaran la yeesheen qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiyada sare ee dalka Soomaaliland. kulankan oo ahaa mid ay albaabadu u xiran yihiin waxa uu ka qabsoomay xafiiska wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade. waxaana kulankan goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Maxamuud Axmed Barre Garaad oo ah gudoomiyaha gudidaasi, wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire, wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Mudane Cali Maxamed Waran Cade, wasiirka xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdillaahi Abubakar Ismaan iyo taliyaha laanta socdaalka Soomaaliland Ashaana Sare Maxamed Cali Yuusuf iyo waliba mas'uuliyiin sare oo ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland iyo sidoo kale ardayda dugsiyada sare ee shirkaasi ka qayb galay. kulankan oo ahaa mid ay saxaafadu dibadda ka joogtay waxa markii uu dhamaaday saxaafada uga waramay waxyaabaha ay kaga wada hadleen kulankaasi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Mudane Cali Maxamed Waran Cade, isagoo sheegay in ay wasaarad ahaan diyaariyeen qorshe ay ku dhabar jabinayaan kooxo baryahan dambe caadaystay in ay dhalinyarada u fududeeyaan aafada tahriibka. sidoo kale waxa uu sheegay wasiirku in ay maalin dhaweyd magaalada Wajaale ku qabteen mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn kooxdaasi, kuwii kalena ay ku daba jiraan. wasiir Waran Cade waxa uu carabka ku adkeeyay in ay joogtayn doonaan kulanada ay la yeelanayaan ardayda kala duwan ee reer Soomaaliland, isagoo carbaabay in dhawaan ay la kulmi doonaan